waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay shirkii uu ku baaqay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu isugu yeeray golaha wadatashiga qaran markii uu isku dayay inuu shaqada ka joojiyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah Maxamed Xuseen Roble. qoraalkii ka soo baxay Farmaajo ee shirkaasi ayaa u qornaa madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la isugu yimaado shir wadatashi ah oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaas oo ay ka soo qayb galayaan golayaasha dawladda ee heer federaal, dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhameystiran oo si hufan dalka uga dhacda. Shirkan ayaa hadda fashilmay waxaana si rasmi ah Muqdisho uga furmay welina ka socda shirkii uu ku baaqay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Fashilka shirka wuxuu ka mid yahay go'aano uu soo saaray Farmaajo oo shaqayn waayay kuwaas oo ay ka mid yihiin abaabulka kiis musuq ah oo lagu soo oogay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo shaqo ka joojintii uu ku sameeyay 27 December ee sanadkii 2021 ee lagu tilmaamay afgembiga. Fashilka shirkii Farmaajo ayaa waxaa ka dambeeyay dawladda Maraykanka oo Farmaajo si toos ah uga hortimid ugana digtay in uu ku kaco falalka halista gelin kara xasiloonida, waxayna si cad ugu sheegtay inuu la shaqeeyo ra'iisul wasaare Roble iyo shirka uu ku baaqay. waxaa sidoo kale shirka ra'iisul wasaare Roble uu ku baaqay ka qayb galay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee hore u taageersanaa Farmaajo markii ay cadaadis xoogan kala kulmeen beesha caalamka. dhinaca kalena wasiirkii hore ee amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ka deeriyay xaaladda Galmudug isaga oo soo bandhigay xogta khasaarihii ka dhashay dagaal shalay gudaha magaalada Dhuusamareeb ku dhex maray ciidamo ka kala tirsan booliiska iyo militariga Soomaaliya. dagaalka ayaa yimid kadib markii askar ka tirsan ciidanka gorgor ay weerareen saldhigga booliiska ee magaalada halkaas oo lagu xiray askari ka tirsanaa oo la soo qabtay isagoo cabsan sida ay noo xaqiijiyeen ila wareejo dhowr ah oo ka agdhawaa goobta dagaalku uu ka dhacay. Fiqi ayaa sheegay in dagaalkii shalay uu ku dhintay qof rayid ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 5 askari oo dhinacyadii dagaalamay ka kala tirsan, wuxuuna soo jeediyay in la iskula xisaabtamo dhacdadaasi. askari cabsan oo la xiray ayaa sababay iska hor imaad sababay dhimashada 1 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 5 askari sida aan ku helayno xogta ka imaanaysa magaalada Dhuusamareeb. waa dhacdo xanuun badan oo u baahan isla xisaabtan, waxaana ciidamada kala duwan iyo taliyayaashaba ugu baaqaya in ay ilaaliyaan sumcadda ciidamada kana fogaadaan isku dhacyada dhexdooda ah, ayuu Axmed Macalin Fiqi ku yiri qoraal uu soo saaray. sidoo kale wasiirkii hore amniga Galmudug waxa uu sheegay in maamulkaasi uu wajahayo duruufo kala duwan oo ka dhashay hoggaan xumo, isagoo yiri waxa la joogaa waqtigii isbedel dhanka hoggaaminta ah uu ka dhici lahaa Galmudug. baarlamaankii dhexdiisa khilaaf ayaa ka taagan, ciidamada maalin cad ayay isku dagaalayaan magaalada caasimadda ah dhexdeeda, kooxda argagixisada ah cabsigelin badan ayay deegaano badan ka wadaan. waxaa la soo bandhigayay dad kalluumaysata masaakiin Yaman ah oo kooxo burcada u afduuban meel Galmudug ka tirsan, ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi. qoraalka Axmed Macalin Fiqi ayaa intaasi ku sii daray in mar dhow la qaban doono shir weyn oo ay qabanqaabinayaan xubno la magac baxay golaha badbaadada Galmudug. waxaa soo xoogaysanaya in la joogo waqtigii isbedel dhanka hoggaaminta ah uu ka dhici lahaa Galmudug, lana wada baadi goobi lahaa hoggaan danaha Galmudug ka shaqeeya, ayada oo shirkoodii koobaad ee qabanqaabada shalay ay yeesheen golaha badbaadada Galmudug oo mar dhow qaban doona shirweynahoodii koobaad, ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi. magaalada Dhuusamareeb ayaa shalay gashay qalqal amni oo xoog leh, waxaa hakad galay ganacsigii iyo isku socodka bulshada, waxaana ciidamadu ku dhawaad 2 saacadood ku dagaalamayeen bartamaha magaaladaasi. ciidanka gorgor ee shalay weeraray saldhigga Dhuusamareeb waxaa laga qaaday Muqdisho markii ay ahlu sunna qabsatay degmada Guraceel, balse waxaa looga awood roonaaday dagaalkii ay la galeen booliiska Dhuusamareeb iyagoo israsaasayn kadib dib ugu cararay xerihii ay ka soo duuleen markii hore. taliyaha saldhigga booliiska Dhuusamareeb Gaashaale Maxamed Xasan Warsame ayaa sheegay in ciidanka gorgor ay saldhigga ku soo weerareen kadib markii ay ka xireen askari cabsan, balse waxa uu ka gaabsaday khasaaraha ka dhashay iska hor imaadkaasi.